السلام عليكم daawadayaal waa Boolimaag Channel oo aad uga barateen inuu halkan idinka soo gudbiyo dhacdooyinka ama wararka markaa taagan ee dunida kuwooda ugu xiisaha badan. haddaba daawadayaal waxaanu fiidiyowgeenan maanta kaga hadlaynaa oo taariikhdu tahay 20 bishii afraad 2020 sidee ayuu dalka China uga qayb qaatay amaba uu u muujiyay awoodda uu u leeyahay inuu dhammaan dunida oo dhan adeeg u diri karo. haddaba dalka China oo awal lagu yaqaanay inuu ahaa dalka ugu soo wax soo saarka badan marka la eego warshadaha ayaa waxa uu haddana noqday dalka ugu horeeya ee safka hore kaga jira in marka dal wax laga soo sheego markiiba u diro diyaarad isugu jirta agab iyo dawooyin iyo qalabka protectiga iyo dhakhaatiir iyo waliba khuburo. haddaba tan iyo markii uu cudurkaani ku soo fiday dunida amaba uu soo shaac baxay bishii Febraayo ee 2020 ayaa dowladdaasi dalka China waxa ay dhammaan dunida u direysay dawooyin malaayiin tan ah iyo qalab iyo dhakhaatiir. waxaa la oran karaa China waxa uu kaga jiraa safka hore gargaarka dunida uu fidinaya halkii ay hay'adda caafimaadka ee dunida ee WHO loo baahnaa ayaa China waxa uu buuxiyay kaalintaasi. haddaba waxa uu dalal badan oo ka kooban 5 qaaradood ee dunida uu u diray dawooyin iyo dhakhaatiir iyo khuburo isaga oo gargaar degdeg la gaaraya. ma ahan oo kaliya qaaradda Afrika oo u soo diray ee China waxa uu dalal fara badan oo Yurub iyo Mareykan iyo Aasiya u daabulayay ilaa iyo waqtigaas dawooyin noocyo kala duwan iyo qalab iyo dhakhaatiir. waxa uu dalka Talyaaniga u diray intaasoo tan oo dawo ah. waxa uu sidoo kale dalka Faransiiska u diray intaasoo kale oo dawo ah. waxa uu kale oo u diray wadamada la yiraahdo Uzbekistan iyo Kazakhstan iyo Serbia iyo Moldova iyo dhammaan waxa uu u diray dawooyin. halka uu qaaradda Afrika daawadayaal uga dhigay xarun magaalada Addis Ababa oo ay ku soo degaan diyaaradaha waaweyn ee ka soo duula China oo wada malaayiinta tan ayaa kadib halkaa waxaa ka daabula diyaaradaha yaryar ee Ethiopian Airways kuwaasoo u kala qaada qaaradda Afrika. ma ahan oo kaliya China inuu focuska ama muhiimadda uu saaray qaaradda Afrika waxa uu dawooyin u diray wadamadii waaweynaa oo isaga la tartamayay xagga awoodda iyo militariga uu ka mid yahay dalka Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska kuwaasoo ay isku wada jiraan waxa loo yaqaano veto power ayaa waxa uu China noqday isaga midka kaliya ee dhammaan dalalkaasi wax u daabula. haddaba tan ayaa waxay dunida tusinaysaa inuu China la soo baxay awood aan muuqan amaba aan la dhayalsan karin isagoo China lagu yaqaano oo kaliya dhinaca wax soo saarka warshadaha iyo awoodiisa military ee kobcaysa ayaa waxa ay dunida fajac ku noqotay qaabka uu China ula tacaalay cudurkan COVID-19 ama coronavirus kadibna markii uu gudaha dalkiisa ka safeeyay uu gargaar degdeg joogto ah ula soo jeestay caalamka intiisa kale. haddaba daawadayaal fiidiyowgan waxaanu idinku soo gudbinay inaanu ku ururino xogta dhabta ah ee China uu ka geystay dunida. waa Boolimaag Channel oo idinla hamoogaan fadlan fiidiyowga kiisa xiga waana mahadsantahay daawadayaal.